maktabadani waa maktabada saaxiibkayga Axmed Nuur waxay u qaabaysantaa qaabab kala duwan oo cajiib ah qayb walba iyo playlist walbana wuxuu leeyahay ciwaan iyo title tusaale qismada Qur'aanka Kariimka iyo ahkaamta qismada fiqiga qismada xadiiska qismada buugaagta noocyadooda kala duwan ee caadiga la akhristo qismada taariikhda iyo siirada nabiga iyo qismooyinka noocyada kala duwan ee markaasi qofka wax ka aqriyo ama title-kiisu yahay buugaagta qaar sida hab dhaqanka kuwa nolosha ka hadlayo iyo kuwa fikirkiisa thaqaafada ka hadlayo iyo noocyo kale oo buugaag oo markaas meesha aan kula kulmo oo saaxiibkay qaarkood oo ii sharaxay isla markaana aan kala dooday qaarkood tusaale buugaas meesha ka muuqdo muqaddimada Ibn Khaldun wuxuu kamid yahay buugaagta markaasi meesha in badan aan ku arkay saddex xab mise laba xab aan ku arkay buugaagta meesha aan ku arko waxa kamid ah ee Soomaaliga fikir oo hodan noqo inta badan saaxiibkay ma aqriyo buugaagta afka Soomaaliga wuxuu aqriyaa buugaagta afka Carabiga ku qoran oo aad u taageera inta badan aqriya waana arin muhiim ah marka mid kamid ah luqadaha caalamiga wax ku aqrinayso Ingiriis ama af Carabi qofkii fasaaxay u tahay ama ay u fududahay inuu wax ku aqriyo waa shay aad iyo aad bogaadin u ah inaad iska dhisto xagga diiniga xagga maadiga waa shay aad iyo aad muhiim ku ah noloshaada aakhiradaada iyo adduunyadaadaba waana shay noloshaada anfacayo isla markaana moralkaada qofeed dhisayo aqoontaaga xagga dabciga iyo midaada cilmiyadeed hadal muhiim ah wuxuu ahaa liana alqiraa'ata tuqdi al-aql wa taziidu ma'arif al-insaan aqrintu waxay kordhisaa garashada qofka bini aadamka caloosh waxa lagu qoodiyaa cunto garaadkan waxa lagu qoodiyaa wax aqrin wax aqrinta aad joogtayso waxay kubcisaa garaadkaaga isla markaana waxay dhistaa maskaxdaada hadda markii aad baahato waxaad u baahan tahay in caloosh cunto aad ku gurto halka garaadka markuu u baahdo u baahan yahay in uu helo aqoon dheeraad ah iyo cilmi fara badan iyo aqrin joogto ah waana shay aad iyo aad loogu baahan yahay qof walba aqrista ah oo doonaya in uu guul gaaro